السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيار تسكسو دوادا دودينا برارو إيا مركلة دودينا وحان كو قادا إينا موضوع عن دونينا في عن أي دادك أفهمان واسيدا دادك ريرميغا ولا دقتدا بيرليد إيا دادك تولوين كدقن أي إسكوت إسوغو أبابولي كران إسلامر كان إسوغو ديارين كران أبارها إيا دادتك فالله نلو ذاك فكر كاغا انت دود أي سعطو adigoo lambarka gaaban ee lacag la'aanta afariin loogu reebaya waa 28 eber golis iyo hormuudba waad la soo xiriiri kartaa sidoo kale telesom 395 ayaad noogu soo diri kartaa codna waad noo reebi kartaa waxaan jeclahay marka ugu horeysa doodan martida noo joogta maxamed xayir maareeye wasiirka beeraha iyo waraabka dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaan aqalka baarlamaankana ka tirsan Shamse Xuseen oo gudoomiyaha beeraleyda Jubbaland ah kismaayo joogta Dr. Ali Nuur Ducaale oo isna beeraley ah muddo dheerna arrimaha beeraha ku soo dhex jiray dalka Australia ayuu dooda si toos ah uga qayb qaadanaya saddexdiina ku soo dhawaada doodeena baraaru intaanan wax kale u gelin mawduucan warbixin si dhameystiran uga hadlaysa oo Abdulfataax Cabdulle uu soo diyaariyay aan wada dhageysano oo ku xeeran fariimaha qataraha ka diga ee hordhaca ah asbuucii la soo dhaafay waxaan ka doodnay sida duruufaha qof kasta u gaarka ah ay saameyn ugu yeelan karaan xilliga uu qofku fariinta helayo iyo waliba tilaabada uu qaadayo xilliga uu fariinta helo doodeena caawa waxay ku qotantaa ama aan ku falaaqayn doonaa sida ay bulshadu u diyaarsan karto waxyaabo ay isaga yarayso saamaynta abaaraha daadadka iyo duufaanada soo noqnoqda Soomaaliya gudaheeda bulshooyinka qaar waxa laga yaabaa inay degan yihiin meel fog oo aysan gaarin maamul iyo dawlad midna waxay ku qasban yihiin inay ayagu wax diyaarsadaan sida inay baraagaha biyo ku sii shubtaan inay caws meel dhigtaan iyo inay diyaarsadaan gawaari ay ku gurguuraan sida daraadeed doodeena caawa waxaan doonaynaa inaan naga doodno sida ay bulshadu isugu diyaarin karto abaaraha iyo daadadka iyadoo la kaashanayo odayaasha dhaqanka culumada iyo waliba dhalinyarada doodeena waxa qayb ka noqon doona ama caawa marti noogu ah wasiirka beeraha ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Maareeye Shamse Xuseen gudoomiyaha iskaashatooyinka beeraleyda Jubbaland khabiir dhanka cilmiga beeraha ah Dr. Ali Nuur Ducaale oo tan iyo dawladda dhexe Jalla Maxamed Siyaad Barre ku soo dhex jiray cilmiga beeraha isla markaasna hadda ka wada deegaanada Puntland arrimaha ay ka mid yihiin horumarinta beeraha haddaba dhageyste doodeena qayb ka noqo waxaad ra'yigaaga ka dhiibataa sida dadka reer miyiga ah xoolo dhaqatada beeraleyda iyo dadka tuulooyinka degan ay si iskood ah isu abaabuli karaan isla markaasna ay iskugu diyaarin karaan khataraha soo food saari kara sida abaaraha iyo daadadka fariintaada noogu soo dir lambarka gaaban 28 eber waa goolis iyo hormuud si bilaash ayaadna fariinta ku soo diri kartaa haddaad haysato telesom waxaad fariinta ku soo diri kartaa 395 dhanka WhatsApp-ka haddii aad doonayso inaad cod ama fariin noogu soo dirto waxaad ku soo diri kartaa plus 25 eber 666 dhageyste waxaan ka codsanaynaa in aad dooda si dhow ula socoto isla markaasna aad qayb ka noqoto Atoosh aad baad u mahadsantahay Abdulfataax Cabdulle barnaamij soo saareheena oo faahfaahin dheeraad ah ka bixinayay mawduuca caawa ee ku saabsan sida deegaankaadu nooshahay ama aad ku nooshahay haddaad reemiyi tahay iyo haddaad beeraley tahay baad isugu diyaarin karto abaaraha iyo daadadka marka laga digayo mar kale wanaagsan tihiin wasiirka beeraha dawladda federaalka ila fadhiya وحلبان محمد حير ماريه شمس حسين أديكونا سودا أو كسماية جوكتا وانا مقشان وملاينا ها واحد المقرار أد بعض ما صرت دكتور علي نور دعالنا ونوصل بيري دونا اسمه أستراليا قد كوجرة إن دقيقتياش وحنا حسوسين يا أنت ضد أي صعطة لمبر كجابان أي توس فريتو هذا وقصة ديري كران هداد جولس هاي ستية هداد رمود استعمال أي سبا لبس سيدات إبر سؤاشنا وحا أي تهاي sida dadka ay isugu diyaarin karaan marka abaar loo sheego ama daadad loo sheego wasiir Maareeye wasiirkii beeraha tahay dabcan marka laga soo tago inaad wasaaradii beeraha Soomaaliya mas'uul ka tahayna cilmiga beeraha baratay bal su'aasha ugu horeysa hadaan ku weydiiyo sacaadatu wasiir marka la eego way aragnimadaada sidee ay bulshooyinka ku nool Soomaaliya isugu abaabulaan markay ogaadaan inay abaar
ama fatahaad soo socoto bulshada Soomaaliyeed duruufo adag ayay la soo gudboonaaday runtii xilliyo adduunku uu sameynayay isbedel weyn markii 1991 dawladdeenu dumaysay waxay ahayd xilliga ay bilaabantay adduunku inuu casriyoobo iyo tiknoolajiyada iyo kombiyuutarada iyo ganacsiga horumarsan dawladuhu wada galaan xilli waa la xasuustaa anigu waan shaqaynayay oo waxaan dhihi jirnay hebel LC buu haystaa letter of agreement marka bangiyadu ay lacagaa inay kala wareejiyaan oo qofku ganacsiga ah inuu lacag qaadanayo bangiga Soomaaliya uu mas'uul ka noqdo bangiga xagga dawladuhu ay u furaan dadka ganacsiga ayay ahayd xilligaasay Soomaaliya burburtay oo dawlad qiimo badan oo wax qabanaysay inkasta oo sanad ka dambeysay si daciifaysay la burburiyay oo ay burburto qabiil burburiyay marka duruuf adag bay la kulmeen taageeradii dawladda ay waayeen dadka wax soo saarka waa la isla jiiray beerahoodii iyo qalabkoodii duruuf aad u adag ayay galeen dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo danyarta Soomaaliyeed ninkii waxaystay uu ka cararay oo dawladahay u carareen marka duruuf adag oo dhowr iyo 30 sano marba intay doonto dhumuc leekaato ayay dadka Soomaaliyeed soo kulmeen marka had iyo jeer dadka iyaga wax waa ka yimaadaan wax way samayn karaan laakiin de waxay u baahan yihiin dawlad waxay u baahan yihiin aqoon waxay u baahan yihiin maalgelin waxay u baahan yihiin research waxa la sameynayna research lagu sameeyo marka dadka Soomaaliyeed dhibaatadaas ay galeen oo intaba way waayeen qofkii waxaystay waa ka tagay qofkii aqoonta lahaa wuu ka tagay dawladdii wax ma tari karto hadday jirto 10 sano ma jirin marka dalka Soomaaliyeed dhaawac weyn ayaa marka gaaray dadka qaar waxay arkayaan dhaawac gaaray saraha oo haddaba badankoodii dib loo dhisay laakiin waxa ka xun dhaawac gaaray deegaanka oo wali aan ugu baraarugsanayn dhaawac deegaankeena gaaray waxaan dhihi karaa qiimihii dalka Soomaaliyeed xagga beeraha iyo wax soo saarka lahaa boqolkiiba way baaba'een meel geedkan garawaagu qabsado wabiyadii carab buuxisay ummadii baabaaday dawladihii wabiyadu ka imaanayeen wabigii dib ka si sharci darro uga leexsaday yani crisis ayaa ku dhacay deegaanka Soomaaliya dhirtii oo la gooyay you can't imagine yani culayska deegaanka ku dhacay su'aashii jawaabteedii marka duruufta iyadoo lagu jiro waxaan intaa u soo sameynaya saldhigga hadda dawladnimada Soomaaliya inkastoo wali caqabada jiraan way fiican tahay waxbaa bilowday waxbaa la qabanayaa bulshooyinku marka wacyigelin baa sanooyinkii ugu dambeeyey aan dhihi karaa 7 sano u dambeysay ama si uun baa dareen looga sameynayay ka hortagga abaaraha daara si uun baa wacyigelin looga sameynayay si uun baa alert ama digniin hor u dhaca looga sameynayay aad bay marka dadku hadda u bilaabeen inay deegaan abaaraha iska dhiciyaan oo u diyaar garoobaan oo dadka inay u diyaar garoobaan weli waa heer hoose sababtoo ah weli dawladda hoose ee deegaanka ee heer tuulo iyo heer gobol iyo heer istibada hadda la sameeyey intuba badankoodu shaqadii loogu talagalay ma hayaan maamul goboleedyadoo kale meelahaasay siyaasad ka murmaan biyaha durduraya ee cararaya ma qabtaan dadka deegaanka waxay u tarayaan waa iska yar yihiin dawladdii dhexe hadday wax keeni lahayd waxaa lagu leeyahay meeshaan soo gelin caqabadaha jiruu ka mid yahay federalism aan cilmiga ku dhisnayn ee qabiilka ku dhisan bulsho ahaanta marka wasiir waa u socdaa abaabulka waa u socdaa sax marka hadda marka horumar baa jira hadda annagu wasaaradda beeraha ahaan daraasad baan samaynay abaartii dhoweyd abaartii hadda laga baxayo oo weli dadka qaarkii ku jiraan waxay ahayd abaar khatar ah oo dalka oo dhan abaar baa ka jira the positive sign waxa weeye ama calaamadda wanaagsan waxa weeye
xooluhu siday u dhiman jireen uma dhiman sababta ma taqaanin dadka ayaa la qabsi samaynaya weli ma horumarsana la qabsiga ay sameeyeen waxa weeye inay dadka ehelkooda u wacdaan oo jaaliyadaha diasporaha u wacdaan oo yidhaahdaan biyo nooga caws nooga oo banaanka wax laga weydiisto haa marka si fiican baa xoolaha loogu gudmaaday qof siyaasi ama xildhibaan oo lacag dhiibin ma jiro qof wax haysta oo aan lacag baadiye u dirin ma jiro dadka diasporaha si fiican bay uga qayb qaateen xoolo badana la badbaadiyey xoolihii waa la badbaadiyey xagga beeraha waxaa jira hadli doontaaye waxaa jira wax la dhaho hadda beeraha la qabsaday cimilada dhawaan anigu afkooyaan tegey beeraha oo dhan baan kormeeray wax weynaan beera waaweyn baan dhex maray inaad aragteen baan filayaa beeraha aan marayay oo dhan waxay ahaayeen kuwo aan webigu waa qalalnaa beeraha aan marayay oo dhan beero waxay ahaayeen dadku ay ceelal qoteen oo la qabsanaya cimilada la qabsanaya ayay ahaayeen waa markaad booqatay beeraha afgooy marka waxaa kaloo jira magaalada muqdisho iyo magaalooyinka qaar waxaan la dhaho urban farming oo magaalooyinka agaarkooda beeraha magaalooyinka agaarkooda ayaa jira oo dhalinyaro samaysatay aqoon leh oo ceel u samaysatay haddaan hal tusaale siiyo korobka la dhaho cucumber ama ingiriishka weeye laakiin waxaa la dhahaa qajaar qajaarka aadka loo isticmaalo soomaaliya kama bixi jirin $6 ayuu kiilihiisu ku imaan jiray waana culus yahay maybe $6 waa 3 xabo oo keliya hadda wuxuu ka hooseeyaa 0.5 dhalinyarada greenhouse-kaa sameeyey urban farming-kaa sameeyey waana la joojiyey banaanka iyo madal tartami karaan hataa lama tartami karaan marka waa qayb fahamka beeraha ay Soomaalida aad ugu soo beeraha horumarsan ee dabeecadda la qabsan ee dad aqoon ku jiraan ee lacag ku beeraha Soomaaliya before hada wixii ka horeeyay lacag kuma jirin polisiyaad bari waa jiri intii dhexe lacag kuma jirin dad aqoon kuma jirin research kuma jirin laakiin hadda faa'iido badan baa laga helay dhalinyaro badan baa ku biiraysa marka haddaan soo koobo oo diyaar garowga bulshooyinka calaamada wanaagsan baa jirta ee xagga abaabulka waa ku sheegay diyaar garowga waxa weeye for example wasaaradda beeruhu annagu waxaan leenahay qaabaanu dadka u gaarsiino khataraha fatahaad soo socoto haddii abaar soo socoto iyo sida uga kaashaaban karaan iyo sida isu abaabuli lahaayeenba waxaanu leenahay call center qof kastoo beeraley oo soo waca talooyin lagu siinayo hadduu xanuun arko soo sawirayo sawirkaa markuu hadda technology la haystaa dadka dee smartphone-ka haysta hadduu ku arko beertiisa cayayaan wuu sawirayaa waa qaadnaa waa baadhnaa wixii lagu dili lahaana waa keena ama wixii si uga hortegi kara marka xarun fiican baan leenahay wasaaradda xanaanada xooluhu saas oo kale hay-adda sodma abaaraha saas oo kale ila badan oo dadku wacyigelin iyo diyaar garow ka helaanba calaamada wanaagsan oo kuu sheegana way jirtaa waxaan isleeyahay inta ka mid 5 sano soo socota Soomaalidu horumar badan bay ka samayn doontaa xagga la qabsiga abaaraha iyo fatahaadaha ayaan isleeyahay waa maasanta wasiir Shamso Hussein Royna u baaqo Shamso ismaaciil joogta ku soo dhawaad dooda Baraaruug waxaan ku noolnahay deegaanka Jubbaland runtii waa deegaanka ugu dhibaatada hadii la dhaho abaaro iyo hadii la dhaho daadad iyo hadii la dhaho fatahaadadba ugu badan waxaan ku nooleena deegaankan dadka waxay ku noolaayeen oo loogu yaqaan waxay ahayn xoolo dhaqato iyo beeraley waxaa dhacay dhibaatooyin badan dhulka dagaalo badan baa ka dhacay waxaa burburay kanaaladii biyaha celini jiray waxaa burburay muxuu ahaayeeto webiga hadduu buuxsamo magaaladii uu soo galayaa iyo tuulooyinkii u dhowaa haddii uu biyihii ay hoos noqdaanna muxuu ahaayeeto beerihii ma waraabin karaan oo maahan kanaalii way burbureen dhibaato badan baa dadkii ku dhacday hase ahaatee marka ay degniinaha soo baxaan saadaasha ay noo soo dirto dowladda federaalka ah waxaan samaynaa isku tashi beeraley haddaan nahay deegaankeenna muxuu ahaayeeto dadku waxay isku dayaan in ay ka hortagaan abaaraha iyo daadadka iyagoo qaadaya tallaabooyin kala duwan beeraleydu waxay diyaariyaan dhul beereed
iyagoo sameeya biyo xireenno yaryar. biyo xireennada yaryar waa carro jawaano lagu guray iyo raboodyo la sameeyey iyo bal wax un taxadar ah iyo marin biyoodyo si loo xakameeyo daadadkaas oy u gelin xaafadihii iyo guryihii. waxaa la sameeyaa dadka u dhow meelaha biyaha cabsida laga qabo in dadkii laga raro oo meelo sare la dejiyo oo muxuu iyaga qalabkoodii la qaado. sidoo kale waxaa la sameeyaa wacyigelin ku saabsan in aan samaysano keed biyoodyo. biyahaas inaan isu tagno wara qodanno ceelo qodanno biyahaas si aan u keedsanno. muxuu ahaayeeto waxay iska jirto dadkii oo iska danhayso waddankii oo nabad badan ka jirin. muxuu ahaayeeto dhanka kale abaaraha marka la filayo abaar la filayo dadku waxay isku dayaan inay yareeyaan khasaaraha iyagoo beera dalagyo u adkaysta biyo yaraanta ama abaaraha. dalagaas oo ah muxuu ahaayeeto haruur masagada iyo digirta. waxaa kale digirta iyo muxuu ahay galleydaasaan abuuranaa. dadkana muxuu ahaayeeto waxay samaystaan marka abaaraha ay dhacaan biyo dhaam bay samaystaan. ninkii xoole markaas isaga lacag haysto ninkii warihii waagii hore warahaasaan qodani jirnay bakaaraan leheen oon ku guran jirnay waxa noo baxo oon keed ka dhigan jirnay. haddase wax alla wixii noo baxo waxaan ka dhigannaa muxuu ahaaye waxaan ku shubannaa fuustooyin oon ku keedsannaa si aan waaga aan u baahano oo abaaraha iyo waxa ay dhacaan aan u isticmaalno. waxaa kaloo aan samaysannaa muxuu ahaayeeto in aan diyaarsanno abuurkii aan markuu roobka doo abuuran lahayn ayagana waan keedsannaa oo badarkaas noo baxay ayaan ka keedsannaa miro taya leh oon meel dhiganno si aan berri markuu roobabka dogo ama barwaaqada la gaaro aan u beeranno. waa maasanta shamsi waan kuu soo noqonaya aadan kugu soo noqonaya. waxaan jeclahay inaan dhowr qof oo raadiyaha barnaamijkan baraarug idaacado badan Soomaaliya ku yaala ayuu ku baxaa. marka dhowr qof oo fariimo nooga soo dirayaan jeclahay inaan halkan ka sheego. dhegeyste raadiyaha ka dhegeystay doodan baraarug waxa uu yiri waxaan isku daynaa inaan ku badbaadino lacag yar oo wadajir ah oo kooxaha haweenka oo aan kaydino biyaha ka hor inta uusan qiimuhu sii kordhin. dabcan dhegeystaasi waxa uu ka jawaabayay su'aasha ah sida bulshada ay isugu abaabusho isuguna diyaariso xilliga abaar ama fatahaada laga soo digo. dhegeyste kale isna wuxuu yiri waxaa jira guddiyo maareeya masiibooyinka deegaanka kuwaasoo isku xira howlaha iyo diyaargarowga iyo wadaagga macluumaadka. dhegeyste kale oo aan jeclahay dharkeenley inuu ka soo dhiibtay fikirkiisa raadiyaha muqdishona naga dhegeysto wuxuu yiri wadayaasha bajaajta waan iscaawinaa haddaan nahay. dabcan waa darawal bajaaj wada haddii mid uu xanimo dhoobada ama biyaha daadka kuwa kale ayaa u imaada. dabcan wuxuu ka hadlayaa marka fatahaado ay dhacaan sida dadka ay isu caawiyaan. aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasha. waxaan xasuusinayaa raadiyaasha aad naga dhegeysataan fariimihii aad u soo dirteen inaan helnay waan idinkaga mahad celin karnaynaa. hadda kadibna waad noo soo diri kartaan mar alla markaad barnaamijkan dooda baraarug aad ka dhegeysato raadiyaha. wasiir maareeyaan jeclahay inaan su-aashan weydiiyo. sacaadad wasiir door noocee ah ayay odayaasha dhaqanka ka qaadan karaan kor u qaadista iyo isticmaalka hababka marka dadka la doonayo inay isu diyaariyaan abaaraha? aad iyo aad baad u mahadsan tahay. odayaasha dhaqanku had iyo jeer bulshada Soomaalida hoggaankeeda ay kamid yihiin. dabcan mas'uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay dowladaha ama dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada ayay saaran tahay. tan heer degmay saaran tahay, ta heer gobol bay saaran tahay, ta heer tuulay saaran tahay. dadkaas mas'uul ka ah. odayaasha dhaqanka iyo culimadu hoggaankay kamid yihiin. dadka wax laga maqlay kamid yihiin. dadka mas'uuliyad ka saaran tahay bulshadooda duruufaha ay ku jiraan inay la qaybsadaan marba oo ka saaraan bay kamid yihiin waana qaataan. markaa dee wacyigelintay wax ka samayn karaan. taakulaynta bulshada loo samaynayo sidii weligeed bacaadada ahayd bay wax ka samayn karaan iyaga iyo culimadu. laakiin midda aadka muhiimka u ah waxa weeye in dadka mas-uuliyiinta dowladda ah heerarka kala duwan ee dowladda ilaa heer tuulo ay dadka geliyaan oo abaabulaan.
siday dadku sheegeen ama wiilka bajaajku uu sheegay oo kale bulshooyinku waxay ku qabsadaan inay is abaabulaan annagu hadda beeraleyda waxaanu wadnaa dee inaanu iskaashatooyinkoodii dhisno maanta kulan waxaan la lahaa associationka gabdhaha soomaaliyeed ku jira beeraha I don't know in shamsa kamid tahay laakiin sawaa la dhahaa Somali Women in Agriculture Association waa la dhahaa kulan baan la lahaa gabdho ilaa sodomeeya kulligood beera leh beera fiican leh ayaan la kulmay waana ku amray inay gobolladana u faafiyaan oo gabar kasta oo ku jirta beeraha la diiwaan geliyo deedna sidaas wax lagu qabtaa iskaashatooyinka associationska Somali Youth Association in Agriculture Sector baan leenahay oo dhalinyarada waana daadejinaynaayo ilaa heer tuulo inaan gaarsiino marka dadku waxay wax ku qabsadaan oo lagu abaabulaa associationska iyo beeraleyduna wax la dhaho iskaashatooyin bay leeyihiin iskaashatooyinka liindhanaanta jirta iskaashatada waxaa jirta dabcan mooska iskaashatada saas oo kale ama crop based waaye ama dee qaabab kala duwan marka qaarkood waa gender sidaas aad arkayso women dumarkaas oo kale qodob muhiimad ka dhawajisay saacadu wasiir dumarkaas markaa saas oo kale u shaqaysataan markay fariimaha fatahaad inay soo socoto ay helaan abaarihi ayna u baqayaan beerahoodii maxay tallaabo qaadaan ugu horreyn horta waa kala labo abaarta iyo fatahaadu laba qaab baa loo kala wajahaa hagaa actually inkastoo labadaba masiibo yihiin aniga abaarta wax ka xun ma jiraan abaartu waxa ma reebto laakiin dee fatahaadu waxbay reebtaa dhulka loo barwaaqana jiro roobkii ku daayo oo meel lagu baabiinaya laakiin dhulka badankiisa dee barwaaqo u oranaya ma garatay صح oo waxbaaba natiijada ka soo baxaysa hagaa laakiin abaartu dee wabigi bay qalajinaysaa ceelash bay qalajinaysaa ummadii bay qalajinaysaa korobki bay qalajinaysaa xukuma harayaan marka laba si baa loo kala wajahaa abaarta dee waxa loo wajahaa haddeeroo kale ay la wajihi karaa hadda maalin dhaweyd shir baan qabtay maybe inaad soo daysay waxaan ku idhi Soomaalidu hadda waxay ka soo baxday abaar iyo biyo la'aan hadda roob baa daay biyihii way qulqulayaan ka hadli maayo meesha shamsa joogto kale webiga ee fatahaada ka cabsanaysa laakiin galmudug oo kale Somaliland oo kale Puntland oo kale baydhabo oo kale biyihii way socdaan way ordayaan way arkayaan maamulkii wuu arkayaa kii heer tuulo wuu arkayaa kii heer gobol wuu arkayaa maamul goboleedku wuu arkayaa la qaban maayo wala fiirsanaya biyaha la celin maayo bil iyo bar kadib togo xukuma jiraan biyo kuma jiraan maadaama aan la celinin hagaag marka sometimes marka aan anigu dadka u sheego biyahan helna waxay dhahaan hadee dadkiina say wax ka yihiin dee miyaanu arkayn biyahan inay socdaan oo dhamaanayaan biritan loo baahan karo su'aal taala intuu qeybtu soo weydiiyay dadka bini aadamka waxa laga rabaa wixii mar soo mara ee mar labaad soo mara inuu cashir ka barto reebadi wuxuu dhihi jiray ninkii mar isira mar labaad isira mar saddexaad araa doqon soo maahan hagaag dadku waa doqon marka su'aal taa ku xirto dhageysto soo weydiiyay ku dhageysanaya waa ogahay biyihii orday ee aad aragtay baabuurta qaadaya hagaag togaas aad aragtay berri waa lacagta uu baahan yahay in lagu celiyaa $50,000 ma dhama dawladuhuna maalintii $50,000 ku qadeeyaan $50,000 ma dhama sababtoo ah shamiito weyn baa samaynaysa shamiito gidaarka leegaa samaynaysa webiga oo maraya meel oo daadega oo dhinacyada dooxa ka xigto meel goda ka xigto aad dhigaysaa dhig bay leedahay cagaf ku soo qaadaysa waa dhige biyihii dooxadu leeyahay dooxaasi wuxuu noqonayaa wada cagaar waxa ka samaysmaya waro waaweyn oo biyo ka buuxaan waxa laga yaabaa in 2 sano la cuno wixiisa biyaha la reebay dadka haddana markaad 1 kilomitir socoto haddana waa dhigaysaa dooxa kala samaynaysa haddana waa dhigaysaa hal xabad bad tagi mayso lacagna kuma baxayso su'aal taa ku saabsan oo dhageysta hadda ku dhageysanaya ma waxa aad u jeclaystay barnaamijka sida dhageystayaasha u dhageysanayaan wuxuu ku leeyahay mubaarak miraal yiraahdaa بعد سلام وزير ماريا waxaan weydiinayaa maxaa wasaaradda uga qorshaysan biyaha roobka ee gelaya badda wasaaraddu ma ka hortagtaa abaaraha si loo kaydiyo cooskaas waa laba su'aal oo isarsan marka annaku marka ugu horeysa dawladdu dee wixii ay haysana way qabataa talana way keentaa hagaag hadda waxaanu ku jirnaa xilligii tala keenka lacag badan qaranku ma haysto
annagu dowladda federaalka laakiin haddaan maamul goboleedyada iskaashan lahayn oo buuqa siyaasadeed inta la iska dhaafo horumarin laga shaqayn lahaa wax badan baan qaban lahaa ku yiri biyaha in la celiya $100,000 ku bixin mayso oo biyaha dhan laga sameeyo intaasoo dhul lagu sii daayo oo ay xoolihi u sameeyaan caws ciidda ka badan oo meelo waraa sameeyaan biyahaas dadka Soomaaliyeed uu ag fadhiyaa 2 bilood kadib waxa ku dhahaa biyo ma haystee biyaha la soo diro marka annaka dhinaca iyaga waxaan wadnaa mashaariic badan oo waro lagu sameeyo dadka inaan wax tusnaan rabnaa hadda waxaa jira dhowr mashruuc oo sameynaya waro iyo ceelal iyo meel biyo qabatina oo weyn ka sameynaya dabcan Somaliland way ka bilaabantay Puntland waxba ka jira meel badan dalkoo dhan way ka bilaabantay ha lagu kala badnaado gabadha korkeeda oo kale waxa laga sameeyay meel oo bad oo kala Soomaaliya oo hara aad u weyn waxa jecla shamsina soo dhaweeyay shamsa beerihiina dabcan kismaayo joogtaa webiga waa idin dhow yahay goobeyn webiga ka bilowda markay sidan oo kale timaado dadka tabarta daran iyo culimada ma caawiyaan dadka tabarta daran ee markay awood u lahayn inay guuraan marka dib uu soo wajahan yahay shamsi xuseen oo beeraley oo kismaayo joogta waa su'aal wanaagsan wariye doosh way caawiyaan culamaa diinka oday dhaqameedyada way u kacaan dadka way baraarujiyaan sidii arrimahaas wax looga qaban lahaa aad bay uga shaqeeyaan runtii wasiir maareeye mar labaad waan ka mid nahay ururka saawa gabdhaha beeraleyda iyo ganacsatada gudoomiyaha u fadhiyo Jubbaland baan ahay xafladii daafurkina waan ka qayb qaadanay oo habeenka cashada shahaadooyinka gabdhaha aad siineysaan ka mid ahayn wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Jubbaland ayaa hadda waxay wadaa mashaariic fara badan waxay diyaarisay kanaalooyin 3 kanaal ba hadda la sameeyay dhowr kanaal oo kalena waa la sameynayaa khaam iyo muxuu ahaayay yoontoy khaam iyo yoontoy iyo muxuu ay goobweynba waa laga sameynayay kanaaladaas waxaa kaloo la sameeyay dhulkan waraabka roobka ku baxo waxaa loo sameeyay wara waaweyn ayaa loo diyaariyay dhowr war waa la qoday kuwa kalena way diyaarsayn oo phase 2 ayaa la diyaarinayaa Jubbaland waxaa laga sameeyay beero waaweyn oo loogu talagalay cooska lagu abuuro oo calaf ah yaa hadda loogu la diyaarinayo oo hadda socdaan hadda ka hor sama jirin hadday socdaan mashruucyadaas insha Allah kuwii lagu guuleystana Allah ka dhigo annaga abaartu wali way nagu jirtaa xoolihii way dhamaanayaan dadkii way barakaceen beerihii waa inta webiga joog oo dhow oo muxuu ahaayay to abniga ah waa la abuuraa oo waa jimooyin cambalaho liin laho حتى وحي كبيحي جرى كينيا هذا لو أبورا وحدي دنا إن عندي بد وح كرات سنو هادو أهان لا إسبان بهالكي محل هاي بيت رافكي يوم هو هاي تو علوني يوم هو هاي تو وحيالا بهدو يكلم قيهين وكينيا أي هذا أبورك وسارد النور كنتي on hadda diyaarsanay inaan abuurano insha Allah Jubbaland way ka bixi doontaa saan rajeynayo haddii kanaaladaas dhammaan la wada sameeyo warahaasna dadka loo qodo waraha waaweyn la dhammaystiro insha Allah kayd biyood fiican baa la heli doonaa dhulal badan oo loo xirmaayeeyay calafna wuu jiraa waa 2-8 eber golis iyo hormuudba waad naga soo fariin waad nooga soo diri kartaa waa lacag la'aan fariinta markaad soo dirayso su'aasha aan weydiinayno dhageystayaasheenana waxa weeyaan sidee deegaanka aad ku nooshahay ay dadku isugu diyaariyaan abaaraha iyo daadadka mar kale aan ku celiyo fariinta gaaban waxaad ku soo diri kartaa 2-8 eber waa bilaash oo waa lacag la'aan markaad fariinta soo dirayso su'aasha aan jawaabta u rabnana waxa weeyaan dhageyste deegaanka aad ku nooshahay sidee dadka isugu diyaariyaan abaaraha iyo daadadka marka laga digo oo ay fariinta helaan waxaan jeclahay dhowr qof oo fariimahooda barnaamijkan raadiyaha markay ka dhageysteen noola soo xiriiray haddaan ku bilaabay dhageysta salaamu calaykum ku bilaabay qoraalkiisu wuxuu yidhi walaal waxaan joogaa magaalada muqdisho dadka qaar ma helaan fariimaha iyo digniinaha marka si looga hortago arrinkaasi khataraha su'aasha aan weydiinayo martida barnaamijka aan weydiinayo waa sida si looga hortago ayuu yidhi nin kale isna dhageysta wuxuu yiri dooda baraarug waxaan leeyahay fariin iyo wacyi gelin kaliya bulshada
wax uma tarayo ee haddaanan la helin qorsho wax ka bedela nolosha maxaa yeelay dhaqaala yari ayaa dalka ka jirta iyo jahli fara badan aad baad u mahadsantihiin dabcan adiguna fariintaada raadiyaha waad u soo diri kartaa inta aan haleelnana halkan ayaan ka qarinaya aan ka akhrin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo aad baan idin salaamaya waxaan jeclahay shamsu xuseen inaan su'aal ku celiyo en shamsa muddo badanaad beerahan ku dhex jirtaa dabcan tacabkana waa taqaanaa aqoonta aad u leedahay dadka soomaalida weliba adig beerahan raba inaan ku weydiiyo abaaraha ma ahan baraarug intee la eg ayay soomaalidu ka samayn karaan inay isdiyaariyaan runtii waa su'aal wanaagsan atoosh dadkan deegaankan runtii waxay ahaayeen beeraley beerar qodatay ahaayeen iyo xoololey dadkii horta waxaa u diiday inay beerihii qotaan hay-ado sida WFP oo kale ah muxuu ahay dadkii markii ay beertii fashaan oo ay ku xisaabtamaan badalkii u soo baxay inay magaalada keensadaan waxaa la bixiyaa raashin ay WFP bixinayso dadkii qarashkii ka galay waayaan way ku qasaaraan halkaas abarjab badan bay ka qaadeen laakiin hadda runtii saan u qaylinaynay dadkii hadda way ku hanuuneen inay beeraha fashaan dadka beerahay u wada dhaqaaqeen waxaanan rajaynaynaa in aan ka baxno cunto dibad laga keeno iyo baahi oo aan samaysano kaydad badan oon annaga leenahay isku filaashana aan ka gaarno xagga beeraha waa gartay shamso ma jirtaa qof tusaale ahaan iyadoo fatahaad laga digayo intaad u tagteen dadka webiga jiinkiisa degan aad tidhaahdeen war dhibkanaa soo socda farriintanaa timid ha la aamino oo webiga jiinkiisa ha laga baxo dad badan baa jira dadna yeelana way jiraan dadna diiday oon doomo u dirnay oo dad oga dhintay oo galeydii mindhaa 40 loor oo galey oo guriga ugu jirta xataa ay biyihii ka qaadeen oon ayaga yaa allah yaa nafta ku soo qaadnana way jirtaa inta badan dadka way ogol yihiin dadka dhalinyarada u badan dadka da'da yar laakiin dadka waaweyn warkaaga ma qaadanayaan ilaa ay wixii arkaan aad baad u mahadsantahay wasiir maareya isla su'aashaasi weydiinaya wasiir dabcan shaqaale badanaa idin jooga oo wasaaradda beeraha ka shaqeeya ama heer dowlad goboleed aad u dirtaan ama intan afgooyi iyo dhulkan ahaan dadka marka aad abaabulaysaan ood leedihiin war abaar baa soo jirta soo socota waa laga digaya ha la aamino farriintan biyaha la kaydsado abaabul noocee samaysaan waan samaynaa dee structure baan leenahay sida ay haddaba sheegtay shamso beeraleyda in badankoodu waxay ku jiraan iskaashatooyin waxay ku jiraan associations dallado marka dee laba heer oo wasaaradda beeraha baa jira wasaaradda heer federaal wasaaradda heer federal member state oo shaqaale aad u badan kulligood shaqaale u shaqeeyo fidayayaal dad la dhahaan leenahay oo beeraleyda contacti la leh oo abuurada iyo cayayaanada iyo waxaas iyo ka caawiya marka xaaladdu aanay dee emergency ahayn waxaasoo dhan baa loo mariyaa dabcan dee sida aan hadda hore u sheegayna isku duruuf maa qofna fatahaad buu ka cabsadaa qofna abaar iyo biyalaan buu ka cabsadaa dadkaan annagu mas-uulka ka nahay dee mid walba fariintiisa la gaarsiiyaa annagoo u marayna associationska cooperativeska maamul goboleedyada dadka extensionka ama dadka fidayaasha la dhaho kuwo isku duwayaal la dhaho gobolada jooga dad badan baanu u marnaa oo aanu ku gaarsiinaa fariinta waan jeclahay waxaan jeclahay su'aashan inaad faahfaahin dheeraad iga siiso oo weliba ay dadka marka wasiirkii beeraha idinla jooga oo farriintanna saameynteeda yeelanaysa maareeye cilmigii beerahana waxbaad ka taqaanaa weli waxaan jeclahay qodobka beeraha ilaa hadda roob baa da'aya qofka intuu maqlo inuu roob soo socdo beertiina uga baahanta badbaado inuu ama carra ku owdo oo biyihii iska waxay aan dhegaysanin haddana farriinta maxaad odhan lahayd wallaahi dee horta dad badan baa kugu xidhan laakiin annagu systemkayaga gaarka baan leenahay halkana way ka dhegaystaan 2 casho ka hor shir jiraa'id baan qabtay maamul goboleedyada wasiirada jooga iyo wasaaradaha jooga shaqa lamida bay hayaan de dabcan dadka Soomaaliyeed oo dadka beeraleyda ahi badanaa dad fakhriya bay qaaraba badankoodu weeye oo aan awoodin moobilada smartphone-ka aan haysan laakiin kuwaasna de waxaanu sidaan kuu sheegay fariimaha call centerku waa xafiis wasaarada ku yaala 24 saac shaqaynaya qof kasta oo soo jawaaba arkaya degmooyinka wacaya fariimo gaarsiinaya ayaa jira
marka dee dadna waxaanu isku daynaa inay raadiyo camal ku gaadho raadiyaal baanu macaamil la leenahay qaar waxaanu isku daynaa inaan mobilka ku gaarsiino qaar waxaan isku daynaa inaan wacno qaar istuudiyoyaashu inay gaarsiiyaan qaar fariimaha dadka extensionka la dhehe agriculture extensioniska la dhehe beeraha fidinta qaabilsan inay gaarsiiyaan wasaaradaha inaan marno marka intii kalena waa la dadaalaa laakiin la qabsiga dabeecadaha iyo tiknolojiyada iyo saadaasha iyo aaminidda saadaasha laftigeeda dadka Soomaaliyeed dad ilaahay iskaga tiirsan oo marka qaarkood xataa haddaad tiraahdo rooba imaanaya meeshaan ka dheer wuxuu adigu ilaahay ma tahay adigu maadaama yaa kuu sheegay laakiin de ilaahay quraankiisa way ku jirtaa cilmi in la baxthi la sameeyo tan la sameeyo saadaal la sameeyo xidigaha la sameeyo oo wax la saadaaliyo way ku jirtaa diinta islaamka marka way jiraan sida gabadhu sheegtay dadka madax adeegaya laakiin dadku hadda wuu soo baraarugayaa dadku abaaruhu la soo qabsanaya dadku fatahaadu la qabsanaya dadku beerihii wax soo saarkii buu u jeedaa waxay ku xanuunsadeen waxyaalihii dibadda laga soo dhoofinayay aan qiimaha lahayn ayay ku xanuunsadeen saliidaha bannaanka laga keenaya dadku kansarka ka qaadayo ama bariiska dhacay waxaasay dadkii fadhaab ka taagan yihiin waataan hore u sheegay aan idhi madaxda dalkoo dhan haddii annakoo meel fadhina na la yidhaahdo waxaa dhahayaa soor iyo bariis kulligood waxay dhahayaa soorta isi alles ay ka dhammaato ma cunayaan bariis sax maqaaxiyahaasunbaa bariis baan hayaa bannaanka laga keenay mooye dadka wax bartoo dhan ma cunaan waana soortaasna waa geleydii dalka meelaha qaarkood sareen waaye sareenkana hadda daraasadaan ka wadnaa uu ka baxay afgooye uu ka baxay meesha gabadhu sheegayso hadda ma sheegayso labada meelood ay sheegtay qaamqaam iyo gurweyn annakaa wadna dowladda federaalku lacag ay keentay waaye marka dadku hadda wax organica oo ay dalkooda ku beereen maahane wax kale ma cunaayo dadka wax haysta dadka madaxda ah iyo dadka beeraleyda inta kalena way mar dhow way diidi doontaa bariiska iyo waxa bannaanka laga keeniyo saliid caddaydu midda ugu xun waaye saliid caddayda Soomaaliya la keenaa waa gufarka ka hara ama qashinka ka hara saliidaha loo diro adduunka dhegeystahan very serious su'aal haddii halkaaga ku jirto aad u qurux badan qof halkan ka soo hadlay yaan jeclaa inaan weydiiyo kadibna waan ku noqonayo wuxuu yiri dhegeystahan nin weyn yaa ugu qoran aad baan u mahadsantihiin barnaamijka baraarug wax badan baa loo baahan yahay ayuu yiri oo waliba in wakaaladihii fidinta beeraha oo kale iyo wakaaladihii cagafyada waa in degmooyinka laga wada furaa arrinta biyahana waxaa habboon intii tabar leh ee kanaale iyo biyo xireenba in la sameeyo waad mahadsantihiin dhegeystahan waxaad moodaa inuu aad kula socdo dhegeysta kale maxamed cali barre la yiraahdo asna wuxuu yiri bacda salaan wasiir maxay yihiin qorshayaasha dawladda ee lagu yareynaya saameynta abaaraha iyo daadadka iyo caafimaadka si aan wasiirka wax u weydiiyo ayuu yiri dhegeysta kale waasna nuur axmed nishow ala yiraahdaa nishow waan ku salaanay fadlan wixii fikra waad soo dhiiban kartaa su'aasha aan weydiinayo wuxuu yiri marka hore waxay tahay qorshayaasha abaaraha idinkaga yaala ma sii dejisaan intaysan abaarta dhicin wasiir haye hawa sii dejinaa qorshayaal badan baan leenahay oo ay ka mid tahay for example haddaan luuqadda ingiliis ku sheego climate change impact on agriculture ama saamaynta isbeddelka cimiladu uu ku leeyahay beeraha marka qorshayaal waxaan ka leenahay dee dadka anigu waxaanu barnaa wax la dhaho smart farming ama beeraha u adkaysta isbeddelka cimilada bal taan noo sharax saacad wasiir dee taas waxaan ka shaqayna wey beerihii hore qofku intuu uun meel tuulaa iska deganaado beer yar lahaado uu roob uun iska sugayey markuu hadduu soo doona beerayey haddii uu in yar daahana ay ka baaba'ayso abuur kale ku ridaya baaba'aysa abuur kale ku ridaya baaba'aysa waa laga baxay saadaal bay ku socotaa cilmi bay ku socotaa abuur abaarta u adkaystay ku socotaa abuuradu kuwa abaarta u adkaystay geeyey yaa jira abuur abaarta adkaysanaya muddo ka badan buu dhulka ku jiraya oo kii hore ku dhimanaya ka badan uu ku jiraya oo uu sugaya roobka muddo badan uu sugaya asoon dhiman ma dhimanayo hadhowna markii geedku baxana biyo yar buu u baahan yahay hadduu hal maalin ku doo geedku waa baxay bis waa dhamaatay wasaaraddaada tabar ma u leedahay inay beeraleydu dhan gaarsiiso abuurkaas dee waa wadnaa hadde iskaashatooyinkaan u marnaa waa wadnaa marka annagu waxaanu ka shaqaynaaba sidii loo samayn lahaa beero
u adkaysta abaaraha marka oo aan abaarta ku dhimanaynin oo abaarta la qabsanaya oo biyo yar ku baxaya oo midho badan soo saaraya for example aniga afkooda markaan tagay smart farmingka hal geedo oo babaya waxa ku yaala 45 midhood waana yar yahay وانا هالقد adiga waa ka gaaban yahay haddana 45 waxa ku yaala babaya xabo oo waaweyn marka waxa saarnu sameynaa annagu waxaanu halkii geedka ay kaaga bixi jirtay 4 xabo oo babaya konton baan gaarsiinayna konton dhankaas marka laga eego soo ma moodid marka faham badan inay beeraleydu u baahan tahay waana kan u marayna iskaashato gabadhiisa waa ka tirsan Shamsu Xuseen waxaan jeclahay in dhageystayaasha waxaan ka raali gelinayaa Dr. Cali Nuur oo Australia jooga arrimo farsamo darteed aanan qadka toos u soo gelin cod buu noo duubay Dr. Cali Nuur aan dhageysano codkiisa balse waxaa jira tilaabooyin abaaraha soo noqnoqda ee Soomaaliya waa dhibaato dhab ah balse waxaa jira tilaabooyin la taaban karo oo ay bulshada deegaanka iyo beeraleydu qaadi karaan si ay uga hortagaan ama u yareeyaan saameyntooda diyaargarowgu waa inuu noqdaa mid qorshaysan oo joogto ah not kaliya markay abaari timaado waxaa ka mid ah waxyaabaha la rabo in la sameeyo in kaydinta biyaha ama roob qabsiga iyo kaydinta in la sameeyo si in la dhisto barkado baliyo iyo ceelal gacmeed in la sameeyo roob qabsi waxa la yiraahdaa rain water harvesting oo beeraha in laga faa'iideysto biyo mareenada yaryarka ah waxa kale oo kamid ah oo beeraleyda lagula talin karaa in beeraha ay dalagyada beertaan adkaysiga u leh abaarta sida masagada qamadiga digirta sisinta iyo inay isticmaalaan abuur tayo leh oo abaarta u adkaysan kara inay ku dhaqmaan ama ku dhaqaaqaan beer isku dhafan sida crop diversification waxa la yiraahdo oo hal dalag ayan beerane dhowr dalag oo kala duwan ay beertaan haddii mid ka xumaato midda kale ama kuwa kale ay ka faa'iideen haddii marka hal dalag uu fashilmo kan kale ayaa badbaadin kara noloshooda aad baa u mahadsantahay Dr. Cali Nuur aad baad u mahadsantahay wasiir maareeye inkastoona si fiican hadda loo arkin waxaan jeclahay babayga halka xabba ah waa tusi karnaa waana wala wadaageen haddii alla yiraahdo laakiin waxaan rabaa inaan mar kale ku noqono qodob muhiim ah dadka ku weydiin hayaan iikaadi hadday tusaale waxaad u soo qaadatay abaartii hadda dhacday Soomaalida fahamka ay xagga xoolaha u yeelatay iyo in qofkii biyo ugu dhaamiyo ehelkiisii raashin u gado bal hal mar noogu celi actually annagu waa ku faraxsanahay baan ku yiri abaartii hadda dadku way ka adkaysteen waad ogtay berigii hore reer dhan oo 200 oo neef laba dhamaan jiray beeraha oo dhan way baabii jireen beer oo dhan ma jiri jirin dadaalka la sameeyay aqoonta la sameeyay dadku waxay la qabsadeen dabeecadda ayay la soo qabsanayaan adkaysina uu ka muuqdaa dadkay u qaylinayaan laakiin hadda arrintii anigu in badan sheegay haddana aqoonyahan ku sheegayay ahayd biyaha qabso shamse beerteedu waa inay leedahay laba option webigan ku waraabinaya for example juba ma go'o laakiin shabeelle waa go'a beerleyda shabeelle degan qof kasta waa inuu laba option haystaa biyaha xagiiso kale waayo beeri horta biyo ka bilaabataa biyo haddaada biyo ahayd beer ma haysa hagaag okay labada option waxa weeye ceel yarna qodo webigana ku saarno kuwaas waa kuwa odkaysan marka waa laba biyo kala duwan kan haysa ka yaal lacag badan ma garatay hagaag biyaha soconaya war u samayso oo bacaanu haynaa baca waaweyn la dhigaya oo biyo ka khasaari maayaan waliba iska jiray dhulkina ma dhuuqayo biyahaas qabso waa markaad shabeello kale webiga aad saaran tahay ama baadiye digan tahay biyaha qabso ceelna qodo biyahaas markay ka dhamaadaan ceelkii haddana oo roobka ku sug taqriban roobku adigoo wixii biyaha haysto iska imaanaya wuu iska imaanaya uma baahnid maybe 3 years inay qofku u jiri karo 3 years Shamso ma weydiinaa Shamso dariiqyadaas wasiirka uu sameeyay ma sameeysan Shamso Xuseen annagu wayna soo gaartay horta abuurka babayga waan magaaladan ka iibsanaa abuur waxaa la dhahaa abuur hindiya la dhahaa babayga isagoo yar oo miro fara badan dhalayo isagoon gaaban oo jilibka ku gaarayo waa wasiirku waa runtiis wasiirku waxaan ka codsan lahaa annaga fidinta beeraha iyo abuurada kala nooca qudaartii waxaas annaga ma haysan
shamsa waa idin keenaynaa laakiin sawirkii aan sheegayay waa la wadaagay horta ku soo baxay ha waa la wadaagay Catoosh ma dadka fadhigeena waa ballan waxaan inuu saaro profile-ka meeshan insha Allah waa saarayna shamsa su'aal baa waxay ku oranaysaa maamulada idinka beeraleyda tihiin waa madax bannaan tihiin ma u gegsan kartaan tusaale ahaan marka ay timaado fariin intaad hesheen la idin yiri webiga waa fatahaya ama abaar baa soo saayo roob ha sugina shamsa ay ku soco saadaasha iyo waan la soconnaa digniinada la bixinayo waana ka taxadarnaa wacyigelinna waan ka samaynaa runtii beeraleydana waa dad isugu xiran oo iskaashitooyin beerooyin isku dhegdhegan ah taladana waan wadaagnaa waan kala qaadanaa markay digniinaha soo baxaan runtii waan ka dadaalnaa wasaan hore kuugu sheegaybo waxaan samaysanaa muxuu ahay biyo xireenno yaryar jawaanaan soo aruursanaa carraan ka buuxinaa rabuudyaan samaynaa waxaan samaynaa marinbiyoodyo si ay biyihii aan u xakamayno oo khasaaro badan ay u keenin oo ay xaafadihii u gelin muxuu ahaayeyto waana ka taxadarnaa laakiin waxaa jira kuwa webiga dhinaca kale ka jira oo warkaagaba laga yaabo inay maqlin laakiin dhalinyarada dhibaatooyinka badan oo hadda la arkay iyo dad badan oo baaba'ay iyo hanti badan oo ku baaba'day hadda way u dhagan nugul yihiin dadka markay maqlaan way ka soo baxaan doomay soo qaataan dhinaca kale soo maraan culummada iyo oday dhaqameedyada iyo ururada bulshada u kacaan dadkaas waa la garab qabtaa waa loo gargaaraa gurmad baa loo sameeyaa dhar baa loo geeyaa raashin baa loo geeyaa markii wixii ay dhamaadaan nin walba meeshiisiibuu ku noqdaa shamsa waa mahadsantaa wasiirkan rabaa su'aal qoraal ah oo halkan taala saacadtu ma jiraan taageero la awoodo oo ay maamulada siin karaan dadka ka shaqeeya caawimaadda bulshada si loo helo dad u gegsan kara ama u adkaysan kara abaarta ha runtii dee waa jiraa dee dowlad wax yar maaha waa waxa dadka hay'adda ka mas-uulka ama organisation ka mas-uulka ah weeye inay dadka wax barto inay dadka khataraa uga digto inay dadka horumariso inay dadka caawiso ama beel caalam ha ka keento ama iyadu ha bixiso marka way jiraan mashaariic dee dabcan sida dowladaha dee aan burburin ma dhamma waa is yar yihiin laakiin mashaariic dowladdu wado labadeeda heer wadaan dadka lagu barayo sidii ay ula qabsan lahaayeen abaaraha iyo daadadka way jiraan kuwa mashaariic horumarin way jiraan mashaariic biyaha qabanaya way jiraan mashaariic abaaraha ceelal qodqodaya way jiraan marka dadaal fiican ayaa socda runtii oo dee dhinaca kalena annaku waxaanu leenahay mashruuc la dhaho beero oo barwaaqay Soomaaliya BBS baa la dhahaa mashruucaas ama programkaas mashruuc waa ka weeye program weeye micnihiisu waxa weeye agriculture transformation waay bedelka habdhaqanka beeraleyda la bedelaya waxaa laga dhigayaa beeraley marka u horeysa u adkay beer horta adduunku beeraley wuxuu u yaqaanaa saddex wasaaradood oo annaka ah waxaaba beeraley isku dhahaa ballo kala sheeg waa wasaaradda beeraha oo kroobka qaabilsan xanaanada xoolaha iyo kalluunka wasaaradda beeraha la isku dhahaa dunida saddexdoodaas marka saddexduba dee waxbay soo saaraan cuntay soo saaraan cunto ayay soo saaraan marka mashruuca BBS wuxuu ka shaqeeyaa in dadku ay samaystaan xoolaha Soomaaliya oo kale dee berigii hore dee baadiyaha roob baa iska da'ay biyaha may waayi jirin marka nolosha baadiyuhu sidii hore kuma socon karto hadda maadaama dee qaab nololeedkina bedelmay nolosha waa isbedeshay hagaag markaa kadib hadda waxaan markaa ka shaqaynaa inaan bilowno beero isku dhafan beero iyo xoolo isku dhafan dalka oo dhan bay ka socdaan in xoolaha la dejiyo oo biyo loo qabto oo ceel loo qodo oo folder loo abuuro oo loo kaydiyo oo hadhow markii abaartu timaado folderka loo soo bixiyo dee adduunka oo dhan waa saas ma jiro xoolo sida Uganda iyo dadduurka adduunka ma jiro oo bakhalkiisa la soo celinayo ma jiro markaa Soomaaliyana dee wayna ka baxdo khadkaas ka baxdo laakiin xoolihii la fadhiisiyo xoolaha la fadhiisiyey kuwa socda waa ka nacfi badan yihiin
وكعانة بدنيين وكهيل بدنيين حق عمرنا وكتهي بدنيين سي والبا عذر كتا وكعذر يريهين حتى الربادية حتى دوت الماتو أورك أو هريجا لأنه هي أي رتان جورجو سكاكشولا كوا بدن نجري راعان وبنانك هذا كان أقول بورن كان جورجو سكاكتاي كان عاصمة في عن كان عفوا شوان كوا ما تقدر كسو حاجة وين وأديكو ما تقدر راسعون لو أرتسيو كله شو ما بقى هذا سنة كنا أراضو فبادي أراضو أدي حولي ولا فريسين يا نفك وحلقة ليس يا شنية 8 لتر 14 لتر أفر لا تنقصع ها وهجاي دكتور علي نور يان رمنا مركلة إن علمي سكفاية سنة بلاندي سنة موضوع عيسى dawladdu waxay leedahay mas'uuliyiin ama mas'uuliyadda koowaad ee ilaalinta nolosha iyo dhaqaalaha bulshada waxaa jirta marka dhankooda qorshe la'aan iyo ka hortag la'aan labadaba ma jiraan siyaasado xoogan oo looga hortagi karo abaaraha ama fatahaadaha tusaale biyo xireeno ma laha kayd biyo ma laha maaraynta daadadka dalka intiisa badan ma laha haddii la fiiriyo marka kaabayaasha ama infrastructure oo liita wadooyinku waa liitaan kanaalo oo biyo mareen leh malaha iyo meelal ceelal casri ah oo yaryar in la sameeyo taasoo keenta in roobku noqdo musiibo halkii uu barako ka ahaan lahaa waxaa kale oo jira taageero la'aanta beeralayda iyo xoolo dhaqatada ma jiro nidaam deyn fududayn ah oo deyn fudud ay ku heli karaan caymis malaha beeraha iyo xoolaha ama adeegyo farsamo oo extension service waayihii hore jiri jiray oo tababarada hadda waxaa moodaa wasaaraduhu in ay shaqaalahooda ay siiyaan laakiin beeralayda wixii u gudbin lahaa oo extension serviceska ahaa ay meesha ka maqan yihiin wax xiriirahna uu yaryahay ay la sameeyaan waxaa la rabaa maarayn xumo iyo musuqmaasuqna waa jira khayraadka yar ee jira mararka qaar si hufan looma isticmaalo marka dhiirigelinta la'aanta wax soo saarka gudaha halkii la hormarin lahaa beeraha iyo xoolaha waxaa la doorbidaa ku tiirsanaanta cunno dibadda laga keeno dhaqaalaha ku wajahan ganacsatada marka dhaliilahan kale aan u soo jeediyo ganacsatada oo kale ganacsatada waa laf dhabarta dhaqaalaha balse waxaa jira khaldaad muuqda mudnaansiinta faa'iido degdeg ah ayay iyagu leeyihiin badanaa waxay door bidaan soo dejinta ama import halkii ay maalgelin ku sameyn lahaayeen wax soo saarka gudaha waxaa kaloo jirta dhaliilaha ka mid ah ganacsatada maalgashi la'aanta beeraha iyo xoolaha fursado badan oo beeraha iyo xoolaha ah ayaa la dayacay inkastoo ay ka faa'iido waqti dheer ay leeyihiin ka qayb qaadasho bulsho oo yar ganacsato badan kama qayb qaataan gurmadka abaaraha iyo horumarinta beeralayda kor u qaadista qiimaha xilliyada dhibaatada ay jirto mararka qaar waxaad arkaysaa inay iyagu ka faa'iidaystaanba abaaraha iyagoo kordhiya qiimaha raashinka haddaba midda saddexaad aan ku fiiriyo dhaliilaha ku wajahan hay-adaha deeqbixiyayaasha hay-adaha caalamiga ahi waxay bixiyaan gargaar balse sidoo kale waxay leeyihiin caqabado waxaa ka mid ah gargaar ku meel gaar ah ama short term focus wax la yidhaaho inta badan waxay bixiyaan cunto degdeg ah halkii ay xoogga saari lahaayeen xal waara sida waraabka abuurka tayada leh iyo wax la mida isku duwid la'aanna way jirtaa mararka qaar hay-aduhu si kala gooni ah ayay u shaqeeyaan taasoo keenta isdulsaar ama meelaha qaar in la dayaco oo iyagiiba meeshii ku habboon aan loo dirine iyagu ay doortaan meesha ay ka shaqaynahayaan marka uu isdulsaarna yimaado dayac kalena uu ka yimaado ku tiirsanaan abuurid bulshada ayaa mararka qaar ku tiirsanaata gargaarka halkii ay noqon lahaayeen wax soo saar leh iyagu marka bulshadii waxayba ku tiirsan tahay hay-ada in wax la siiyo inay siiyaan oo ay ka soo gaaraan waa mahadsan tahay aada u mahadsan tahay dr cali nuur gabagabadii aan soo gaarnay wasiir maareye adoo noo soo qatimay wasiirkii waraabka tahay dhegeystayaasha horta aan xasuusiyo lambarka gaaban 28 eber golis iyo hormood labadaba waad noogu soo diri kartaa maxay tahay wasiir waxa ugu weyn ee ay dadku qabsan karaan ama diyaar si madax bannaan xilligan
aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaana rajaynaya in barnaamijku gebageba yahay horta hadalkii cali nuur runtii wuu fiicnaa marka laga reebo xogaan la-aanta ka haysta dowladda awoodeeda oo laga yaabo inuu Australia ku fiirinayo laakiin dowladda Soomaaliya ay dee dal burburay oo soo kabanaya yahay oo awoodo badan iyo maragtay qorshe wuu jiraa qorshe la-aan ma aha dalku qorshayaal baa jira vision 2060 baan leenahay ama aragtida dheer ee 2060 qorshaha shantii sano oo maray national transformation plan oo dalka lagu transformation gareynayaanu leenahay national agriculture transformation strategy and action plan baan leenahay ama qorshaha horumarinta iyo isbedelka beeraleyda iyo shaqooyinka laga qabanayaan leenahay marka dawladdu labadeeda heerba qorshayaal fiican bay leeyihiin wax fiicanna way qabtaan laakiin de meelaha uu leeyahay caymis male lacag deyna male deyntu waa leedahay way jiraan bangiga horumarinta iyo dib u dhiska dalka jira oo dawladdu leedahay lacag badan ku jirto deyn bixiya ilaa 36 microfinances yaryar oo shirkado yaryar oo deyn bixiya jira bangiyada dalka ku yaala oo deyn bixiya jira oo beeraleyda siiya maybe beeraleydu inay wali weak tahay oo accountiyo iyo wax iyo procedure-ka laga rabo inuu deyn ku qaato aanay qaarkood aanay gaarsiisnayn laakiin waxaasoo dhan way jiraan tababarada ma siino shaqaalaha iyaga beeraleydaanu siinaa iskaashatooyinkaanu siinaa caawa dhan baan ka hadlaynay inaha xogaal darrada waa xagga dawladda iyo waxqabadkeeda iyo qorshayaasheeda maahane sida uga hadlan ganacsatada uu yidhi waxay xoogga saaraan inay wax soo dejiyaan halkii ay dalka beeraleyda maalgelin lahayn 100% sax waaye maalin kasta ka hadalnaa deeq-bixiyayaasha brograamyadooda qaar negative yihiin oo laga yaabo inay negative impact ay ku yeeshaan wax soo saarka runtiis bulshada Soomaaliyeedna 30 iyo dhowr sano oo tuugsi ah dad badan inay iska noqdeen qof oo handicap amal isagoo hadda midkiisa laxaad qaba waa sidii handicap waxa la dhaqa qofka jiiska ah oo maskaxda ka jiran amal oo marka maskaxdu ka jiran yahay wuxuu aaminsan yahay inuu wax soo saaran karin wuxuu deeq ka sugayaa qof isaga la mid ah oo America ku nool ama Europe ku nool uu leeyahay deeq ma la keenay yaa keenaya ya war waxaas way joogsadeen marka qof handicap ah noqon reerkaaga iyo adigu ya wax beero oo xataa gurigaaga barxadiisa wax ka beerto wax ka soo baxaya marka taasna way jirtaa dadku inay noqdeen dad oo ku tiirsan tuugsi banaanka waxa laga keenay gargaar aniga waan leeyahay maxaan ku soo dhiibay yaa ku soo dhiibay maxaan ku ka soo dhiibay kule yaa ii soo dhiibay waa dhaqan lala soo qabsaday aad ba maadsanta shamsaye su'aasha ugu dambeysay isla wasiirka ah dadka sidee isugu tiirsanaan karaan si ay abaaraha ugu diyaar garoobaan dadka waxay si ay abaaraha ugu diyaar garoobaan in ay samaystaan keed biyoodyo in ay dhigtaan cunto meel cuntada ayaga ay abuurteen oo ay badarka ay soo saarteen inay keedsadaan inay wacyigelin isku sameeyaan in ay ka fogaadaan meelaha ay halisyada ka jiraan waa looga kaaftoomi karaa tan kale wasiir maareeye bangiga horumarinta qaranka ma soo gaarin annaga waddanka meelaha aan deganahay ma soo gaarin way jiraan shirkado yaryar oo lacaga laga qaato laakiin adigu beeraley baa tahay waxaad ka qaadatay lacag kunkii waxaa ku saaran boqolkii waxaa ku saaran 10 iyo intaasoo dollar beerta markaad abuurto wax kuu soo go'ana lagaama sugaay bishaad qaadatay 30 markay tahay bisha kale lacagtiyaa lagaa rabaa lacagtii oo dulsaarkeedana uu badan yahay marka sidaas ayay beeraleyda lacag waxba u deensani karin mana haystaan xitaa dad muxuu ay damiin baa loo baahan yahay cid ku damiinanayso ma lahan shamso labadaba waa bedelnay waa la soo xiriiri kartaa sawa bangiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya barnaamij juun bilaabmaya waxaa deymo aan qaarkood lahayn korsaar la siinaya beeraleyda lagama rabo ilaa beerta u soo goodo dhexda lagama rabo sidoo kale microfinances badan oo asal ka mid tahay saasoo kale beeraleyda duruuftiisa lagu bixinaya deynta laguma dhahayo markasta soo celi damaanada hawl baan ka haynaa waa joojinaynaa iskaashatooyin baan samaynaa iskaashatooyinka isdamiinaya sa waa ku damiinan kartaa adiga
وما ستا إن برنامج جبدي سو قارن دمانتي واد مهنسنتين ضد الناس أنقصوا قتيمية محمد حير ماري وزير كبيرها شمس حسين يا دكتور علي نور ثاني يقول أن بنا بتقليو